waxaa maanta magaalada boorama laga daah furay shirwaynaha hirgelinta qondada haweenka reer Soomaliland halkani oo asaw hotel ayaa subaxdii hore saaka si rasmi ah looga daah furay shirwaynaha qootada haweenka waxaana ka soo qayb galay furitaanka shirwaynahan iyo goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka dalka Jamhuuriyadda Soomaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaliland xildhibaano ka socday golayaasha sharci dejinta asxaabta mucaaradka Soomaliland iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay shirwaynaha lagaga hadlayay hirgelinta qootada haweenka reer Soomaliland waxaana shirwaynahani halku dhag looga dhigay ka qaybgalka siyaasadda haweenku waa lafdhabarta horumarka wadanka waxaana ugu horeyn madasha shirwaynahani furay oo hadallo kooban ka soo jeediyay duqa degmada boorama Salebaan Xasan Xadi sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee gobolka Awdal waxaana ay tilmaameen aad iyo aad baad u mahadsantihiin maanta waxaan rajaynayaa halkan inaad farxad kala noqon doontaan kolba haddii shirkii boorama lagu qabtay dawlad kasta iyo wax kasta oo wanaagsan oo la dhisayna boorama lala iman jiray haddii maanta shirkii halkan lala yimi arrintiin horta way hirgalaysaa waxaan odhanaynaa oo kaliya ku soo dhawaada gobolka Awdal iyo anagu gobol ahaan in si adag ula shaqeyn doono haweenka iyo arrinta laga hadlayo kootada iyadoo oo aan haysano haween badan oo aqoon-yahana oo u qalma inay noqdaan xildhibaanada golaha wakiilada intaasi wixii ka dambeeyay hadalka madasha furitaanka shirwaynaha hirgelinta qootada haweenka waxaa ka hadlay mas'uuliyiintii ka socday golaha sharci dejinta iyo sidoo kale wasiir ka socday xukuumadda Somaliland waxaana dhammaantood isdul taageen muhiimadda uu leeyahay shirwaynahani lagaga hadlayay sidii loo hirgelin lahaa qootada haweenka reer Somaliland runtii hore ma u jirin baarlamaankeena ama golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland inay ka hirgasho in laga aasaaso guddi hirgeliya ama dhiirigeliya in la sameeyo kooto u xidhan kuraas u gaara haweenweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo iyagu goonidooda ugu tartami karaan waa markii koowaad ee guddidaas laga hirgeliyay taasina waxay muujinaysaa bisaylka faraha badan ee ka muuqda maanta baarlamaankeena iyo isbedelada yimid kale oo aanu madashan ku soo bandhigaynaa in shirgudoonka golaha wakiilada Somaliland uu aqbalay in la abuuro guddi madax bannaan oo uu golaha sharci dejinta Somaliland leeyahay oo ah guddida konkaska oo runtii wadamada horumaray oo kaliya ka jira ee aanay ka jirin wadamo inaga oo kala ahi gabi ahaantoodba guddidaas oo magaceeda la yiraahdo konkaska kaas oo ay u mobilize gareynayaan ama ay u campaign gareynayaan in haweenka loo ogolaado inay ka mid noqdaan golayaasha sharci dejinta ee Jamhuuriyadda Somaliland leedahay farsanaya waxa weeye horta dumarku maxay u doonayaan inay ka mid noqdaan golayaasha maxay u doonayaan horta su'aasha ma la isweydiiyay maxaan u doonaynaa inaan ka mid noqono because waxaanu doonaynaa inaan wax bedelo ayaanu doonaynaa isbedel inaanu samayno ayaanu doonaynaa meel bay imika soo gaadhay qolihii wakiiladay timi dastuurka qaranku diidi maayo baar baan la qabaa halkuu ka diidaya qof kasta oo muwaadin reer Somaliland xaq wuxuu leeyahay in la doorto waxana uu doorto lana doorto full stop kaasay xuquuqda rag iyo dumarkuba ku dhayin laakiin waxaynu doonaynaa maadaama dhaqankeena yeynaan diidin guntiga gabagabadii waxaa hadalka kulanka shirwaynaha hirgelinta qootada haweenka reer Somaliland ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici hadday xisbiya qaran tahay hadday civil society tahay cid kasta way ka soo dooday waqtiga la qadaro beerta si ay suura gal doonto insha Allah xeer kasta oo la sameeyana dastuurkeena jideeyay cid soo jeedinaysa ama xukuumad baa soo jeedisa ama golaha dhexdiisa ka dhashay xeer kasta oo la sameeyaa xisbi macaarid ma soo jeediyo oo isagu xeer ma keeno
laakiinse talada qaranka qayb buu ku leeyahay wax laga cararay aanu ma ogiye ilaa sal ay sheegtay xildhibaan baar 2014 ilaa maanta inta doodu way socoto nin walba sidoo doonaha qaabku doonaha arko waa Imraan Xuseen Aadan wararka muqbaaya telefishinka caalamiga Star TV boorama.